ونصيبنا هذه مركواتين تجوا أما ما يرتجوا أما وبربرات تجوا وإحنا صادرنا وعرقنا لما بنو قرن xeebta dheer ee isku xidha gobolada saaxil iyo sanaag ayaa ah dhul hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah balse wali si buuxda aan helin isgaarsiinta casriga ah ee maanta deegaanada ku teedsan xeebta sida dhagax guduud urweyn onqor iyo tuulooyin kale oo badan oo u dhaxeeya gobolada saaxil iyo sanaag waxay hooy u yihiin bulshooyin ku tirsan kalluumaysiga iyo sidoo kale xoolo dhaqashada si kastaba ha ahaatee adeegyada isgaarsiinta ee ka jira halkaasi ayaa ah kuwa xadidan oo loo tago meelo u jirta tuulooyinkaasi 20 kiiloomitir taasoo caqabad ku noqotay kobaca dhaqaalaha iyo sidoo kale adeegyada bulshada ee halkaasi degan shirkadaha isgaarsiinta sida Telesom iyo Somtel ayaa door weyn ka qaadan kara horumarinta deegaanadan iyagoo gaarsiinaya adeegyada casriga oo wax ka bedeli kara nolosha dadka deegaankaasi xeebta u dhaxaysa saaxil iyo sanaag ma aha oo kaliya marin dabiiciya balse waa fursad qarsoon oo u baahan in la iftiimiyo horumarka isgaarsiinta ayaa noqon kara furaha kicin kara dhaqaalaha deegaankaasi sidoo kale isku xidhi kara bulshada deegaankaasi iyo gobolada markaasi ay u dhaxeeyaan haddaba abwaanka hello halkaasi gaadhay ayaa ka soo diyaariyay warbixintan iyo sidoo kale baahiyaha ka taagan halkaasi waxaana kamid ahaa waraysiga uu ka qaaday dadka deegaanadaasi ونصيبنا هذه مركواتين تجوا أما ما يرتجوا أما وبربرات تجوا وإحنا صادرنا وعرقنا لما بنو قرنا هذه وسلا كلها تجانا كلها عمسنا إلى ما نقول ربنا واسك عمسنا. الآن واحد شغلنا مجالات أولوين ومجال حيلات ويان وحيلات شوجا عبد الله أحمد حيلات شوجا وكمية الدجاج كا بل الآن عبد الله كسر هو بكرة مركز سرور. وكل عنده هاي. هذه قرنها المجالات اللي اليوم فاينتي دي بهي كتير. مجالات وحوي deegaanka urweyn laase urweyn baa meeshan la yiraahdaa shan masalo oo bini aadanku noloshiisu ay ku saleysantahay intaba wada aragtay waa ka maqan yihiin waxa ugu horeeyay isgaarsiin dadkii ay ku wada hadlaan ama ay wax ku kala iibsadaan hadii la yiraahdo lama helo waxa loo doontaa dhul u jira 20 kiiloomitir waa isgaarsiinta la doontaa ateenka loo doontaa hadalka misay internet hadii lagu hadlayo iyo hadii internet ay midnaba loo yahay intaan ka bixin isgaarsiinta qodobada baynu sharxi doonaa isgaarsiinta marka qof wax ka iibsado qof wax ka iibisaan tusaalahaan qof soo galay ma badda ka soo galay ma bariga ka soo galay qof subxaan Allah Soomaaliya magaalada waxba ka cunayba sax wuxuu doonayaa iibsi sax lacagna misto adigu jeebo ma ku xustaa waa iska nasiibinaa qofku haduu badanaba hadda dadka noo imaado wadad badda ka soo diga iyo dad sadcaal ah oo wadada maraya oo berbereeyo isku xidhay ilaa mayd dadka sadcaalka noo yimaado aan wax ka iibino ونصيبنا هذه مركواتين تجوا أما ما يرتجوا أما وبربرات تجوا وإحنا صادرنا وعرقنا لما بنو قرنا هذه وسلا كلها تجانا كلها عمسنا إلى ما نقول ربنا واسك عمسنا وما أنت آخر لكن في أنا وشغل كملي تدبنا ما بعرقنا أنت بدأ كاربل شيء إلى تنك كيسان وترى ورد العكس إلى تنك كيلو كيلومتر كيسان وحيا رودي وهول فرب ومرات قاعد حيسته وقلت شوقه وأشياء لو شبطه وقف جاي وحيبي يا قاعد أشياء لو شبطه أنا أتوقع فربري سنة أشياء المسكب هنا يعني لما يشتغل بيعبي سجاري كعبي مركا إسكارسينتا وحنو عملوا أنا هاي شركتها إني دلك إني يمادان تذكي دجاجان ولا يمادا وفربدين هاي هذي على هذا وح إسكارسينا أو لقى هلا هذي قفك بحالك عنو أكتر هذي قفك بحالك عنو وكل ما يو وحورك مهيس وحورك مهلك هذي قاري كلام وحورك مهيس قفك واحد قفك أجي وحيبي عد هانتجاجي واحد نقول سنة لمبر قرقرته وقتي أنا سيب قفكو صدري قف أدويدي تايس كارسين تورتا وحن له هاي مركز هذا بس كأي أنا سبب كان وحي صدري بالده كلا جرم يزيد ما تشوف صدري ما يو وين هذا حراجة هذا حواركتو جرم يزيد كي هراي كده من صدري حراجة حتى كسمة شاتين ما شاتين كتير 3 كيلومتر بعد وقال سنة جراش 3 سنة بسم الله الرحمن الرحيم أنا عقل داير حاج محمود وحن هذا داير مرة شوقنا ماشي اللي يو حابتها وروين اللي هان شوقنا راح جود وانو تغني عنقر وانو تغني حقا كلينا وانو تغني مقالة كتنبنا وانو تغني انت رجودة يو حق الشيء وانو مري شالي وانو صو دعني إلا شالي مركي أنو هربك مريني أتيك وحنو كغني ماشي اللي يراهدو تنبب يعص وانو كغني مركانو كسو دقينا وانو كغني دول كان باهيا كجرته وبداني وحويان واتين لان با كجرته wax walibana teen kaas heedir waqtiga caadka ay joogno ay ku xidhan yihiin dadkaas waxa weeyaan caafimaad ma haystaan wax barasho ma haystaan wax walba way iman lahayn oo gudahooda ka qabsan lahayn
qofka bilaadanka markuu halkaa meherada aad u soo gasho waxa weeyaan waxba ma kala iibsadan karaanba raashinka uu iibsaday shaahi uu cabay burcan ka soo diraya buu qoranaya qaw yimaada marka waxaan doonaynaa shirkadaha hadday Somtel tahay iyo hadday tahay Telesom tahay iyo hadday wasaaradda isgaarsiinta tahayba waayo dhulka waxa weeyaan waa dadkii bilaadanka waxa weeyaan ka masuulkahay in laga shaqaysto oo shirkaduhu ka shaqaystaan una soo dadajiyaan ateenooyinka oo ay ateenooyinka keenaan oo dadkan dil lacag bay haystaan beeyooyinkiiba kuwaasoo buurahaas waxa weeye waa beeyooyinkii waxbay kala iibsanayaan meheradaha ka furan badda haddii markeeda leeyahay inkastoo ay barsooyinku ay dee waxaysan yimisna waa la iman lahaa waa la hagaajin lahaa mashaariicdii Somaliland oo dhan waxay kaga xidhan tahay ateena la'aan bay kaga xidhan tahay hadday waddooyinka samaysan lahaayeen hadday masaajidada dhisan lahaayeen hadday waxbarasho kale samaysan lahaayeen waxaba waxa weeyaan waxay kaga xidhan tahay ateenooyinka iyo isgaarsiinta kaga xidhan tahay marka internet ma haystaan koolka caadiga ma haystaan wax waddo isgaarsiina ma haystaan diyaarad ma haystaan laash ma haystaan marka wixii inta kale oo iman lahayd haddii ay shirkaduhu ay u soo dadaalaan oo soo dhiganuglaadaan marka waxaanu codsanaynaa oo aanu ka codsanaynaa shirkadaha Somtel iyo Somtel iyo Telesom waxaan ka codsanaynaa mas'uuliyiinteeda waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa odayaasha waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa in deegaanka dhan 400 kiiloomitir ilaa Berbera ilaa iyo Xiisa in ay hoos u eegaan oo telefoonada ay soo raarigaan oo laba teelo qura in loo dhiso ay u baahan yihiin labada teelo laga soo gaarsiiyo ma ogtahay in Ceerigaabo lagaaga furay shirkadda Caalami Trading Company